Dhismaha jidka u dhexeeya Berbera ilaa Wajar oo waqtigani socda waa mid fure u ah kor u kaca dhaqaalaha Somaliland. Mashruuca Waddada Berbera Corridor oo ah mashruuca ugu ballaaran ee dalka ka socda ayaa waqtigani laga dareemayaa mashquulkiisa inta u dhaxaysa kantaroolka Halaya ilaa magaalada Dacarburuq. Waxaana waqtigani socda shaqo ballaaran oo hadh iyo habeenba laga shaqaynayo. Dalba dalka kale waxa uu kaga horumaraa amba uu kaga hagaagaa kaabayaashiisa dhaqaale waxaana ay wadadani u muuqataa mid fure u ah horumarka dalka Somaliland. Telefishinka caalamiga ee CUSUB TV oo isagu u kuurgalay wadadani iyo sida ay u socoto ayaa booqday goobo dhowra oo ay wadadani ka socoto. Dhanka kale waxa uu u kuurgalay dooxyadii ugu halista badnaa ee gawaadhida qaadi jiray waqtiyada roobku ka da'ayaan oo ahaa dooxa Dacarburuq aw Barkhadle iyo welibana kuwo kale oo tiro badan kuwaasi oo dhammaantood shaqo baaxad leh ay ka socoto. Waxaana laga raysan doonaa haddiiba la dhiso biriijyadani halistii ay daadadku ku hayeen waqtiyada roobabku da'ayaan. Bal aynu eegno muuqaalo ka mid ah dooxyadaasi xilliga uu daadku marayo iyo welibana halista uu gelin jiray dadka u kala gooshaya gobollada Somaliland ee bari iyo caasimadda Hargeisa. Xukuumadda madaxweyne Biixi uu hogaamiyo ayaa noqon doonta haddii ay ku guulaysato biriijyadaasi tirada badan iyo welibana waddada baaxaddani leh mid taariikhda u geli doonta. Dhanka kalena waxaa la filayaa waddadani in ay soo gebagabowdo 10 kiiloomitir ee ugu horreeya bisha labaad ee sannadda 2020 taasi oo wax weyn ka tari doonta isku socodka gaadiidka u kala gooshaya gobollada bari iyo welibana gobollada galbeed. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, telefishinka caalamiga ee CUSUB TV, magaalada Berbera.